السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل تونا سن دولة شدا قيمها يقدر انت يشرفت وانا قبل نقصر بعد وركنا هبينما جنرال كان يوتيوب كان كلنا يهنان كوركا وعشتو سيدي كسو قدنا وركي قدام بياري مع سياسة الصومالية قد بدأ وركا كدا ودو تنعا وركنا وحقيبي كا daarinta maanta sida rasmiga loogu dhaariyay xirada afisyoon ee magaalada Muqdisho xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya maxaa ka soo kordhay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ka qayb galay qaar kamid ah mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya oo goobjoog ah daarinta xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya Baad Yaasin Xaaji Daar taliye horena waa isku daystoonka qaranka Soomaaliya oo wacd ku maray inuu weerar ku qaadi doono hoyuu ka digay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble xilli hakad xoogan uu galay kursigii horay loogu magacaabay Fahad Yaasin Xaaji Daar isla markaana uu ka mid noqday xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana gabi ahaanba maanta aan ka muuqanin daarinta maanta loo sameeyay xildhibaanada labada aqal ee dowladda dhexe federaalka ee wadanka Soomaaliya gabihaanba waxaa maanta si rasmi ah la caawa loo xiray wadooyinka weyn ee halbulaha soo gala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyadoo la keenay awood ciidamada ugu tiro badan waxaana jirta in maanta iyo sidoo kale caawa iyo socodka dadka iyo gaadiidka Muqdisho waxa ka xoogan oo galay qodobada iyo qodobo kale ee ku daawadanta warkeena hadii Allah awoodira oo inoo ogolaado haatana warkeeni oo faahfaahsana sida qodobada wararkaba aad ku maqlayseen dawlayaal waxaa si rasmi ah maanta xirada afisyoon ee caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho lagu dhaariyay xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka ee Soomaaliya kuma tari doona xildhibaanada kooytoonaad ee dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya waxaa goobjoog ah dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale madax kala duwan oo ka tirsan dowladda madaxweynadeedu dhamaaday waxaa goobta ku sugnaa dhaarinta xildhibaanadaasi qaar kamid ah midowga musharaxiinta dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale madax kala duwan oo xilal kala duwan ka soo qabatay dowladda federaalka ee Soomaaliya xaaladda guud ee Muqdisho caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho xilliga laga cabsi qabo in xalqal xoogan uu ka dhasho khilaafka siyaasadeed xilliga soo hareeyay Fahad Yaasin Xaaji Daar taliye horena waa sugu daystoonka qaranka Soomaaliya isla markaana galaangal xoogan leh madaxweynaha madaxweynaha ku soo dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ana maanta si rasmi ah Fahad uu soo muuqanayn dhaarinta maanta la dhaarinayay xildhibaanada kooytoonaad ee dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya waxaana Fahad la sheegay inuu wacd ku maray inuu weerar qaawan ku qaadi doono Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo xilligan hakad weyn galiyay kursigiisa oo ku lahaa baarlamaanka dowladda dhexe federaalka Soomaaliya isla markaana arrintaas ayaa keentay in khalkhal siyaasadeed Soomaaliya xilligan ay gasho waxaa jirtay ciidamo fara badan oo soo dhaweey qaybo kamid ah Muqdisho isla markaana uu keenay taliye horena waa isku daystoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasin Xaaji Daar oo ciidamadaas oo taabacsan waxaa jirta in laga cabsi qaba in garab weyn uu siiyo madaxweynaha ku soo dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama ay galaangal siyaasadeed xoogan u ka dhaxeeyo taliye horena nabadda isugu daystoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasin Xaaji Daar iyo waliba sidoo kale madaxweynaha ku soo dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gabihaanba waxaa maanta goobta ka maqnaa lagu dhaarinayay xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha ku soo dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana maanta gabihaanba goobjoog ahayn goobta lagu dhaarinayay xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka ee Soomaaliya khilaafka siyaasadeed soo kala dhaxgalay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale taliye horena waa sugu daystoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasin Xaaji Daar ayaa moodaa inuu xilliga wajh cusub uu yeelan karo waxaana gabihaanba si rasmi ah u xiran wadooyin weyn oo halbulaha soo gala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho xilli la sugayay ammaanka guud ee caasimadda isla markaana xilliga laga cabsi qabo in dagaalka falqafool ah uu dhex maro Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale taliye horena waa sugu daystoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasin Xaaji Daar gabihaanba maanta aan ka muuqanayn dhaarintii maanta la dhaarinayay xildhibaanada labada aqal ee dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya walaga cabsi qaba in madaxweynaha Farmaajo uu garab siiyo saaxiibkii Fahad Yaasin isla markaana galaangal siyaasadeed xoogan labadooda uu ka dhaxeeyo maadaama maanta gabihaanba uu ka muuqanayn xirada afisyoon ee xildhibaanada maanta federaalka ee Soomaaliya warbixinteeni aad kala socotaan channelka YouTube-ka aan ku leenahay hanaanka wararka wanaga inta insha Allah wararka dambe ku daawan doontaan wararkaasi ka soo kordha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.